waxtar kalihi inay naafic tahay oo fiican tahay aqoontu sideedaba jahliga inay ka fiican tahay ka fadli badan tahay marka quraanka kariimka ah jahligana waa wax ilaahay laga magan galo oo laga cararo oo ilaahay la weydiisto inuu ilaahay ka saaro way jahli ama aqoon darradu nooc kastay tahay mid diiniya iyo mid adduunyo iyadoon kala baxsanayn nabiyada hadalkoodii calayhi salaam baa waxa ku soo noqonaya a'uudu billahi an akuna min al-jaahiliin أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين إلهي سبحانه وتعالى رسولك عليه الصلاة والسلام مركأ وعدنا أيوه فلا تكونن من الجاهلين النبي الله يوسف هذا الكسوة كجرتي أصبوا إليهم وأكون من الجاهلين بعديس مركأ جاهل هو وحي إلهي لقى مغنقلو إلهي سبحانه وتعالى لقى عرلو علمي قنا قودهان iyadoona kala saarin cilmi adduun iyo cilmi diini cilmigu sidiisa iyo aqoontu ayay u fadli badan tahay taas waa qodob koowaad qodobka labaad waxa weeye cilmigaas marka aqoontaas tan ugu sharaf badani waa al-ilmu bishariicati cilmiga sharciga ee ku baraya Allah subhanahu wa ta'ala weyn ee ku baraya iimaanka ee ku baraya عملك صالح كبريا ودد توسن او مستقبلكاga aad u mari karto كبريا سعادة adduunka iyo aakhirada waxa aad ku heli karto كبريا aakhirada iyo maxaaja كبريا wax ka qarsoon adiga oo hadda aadan arkayn culum ka qarsoon وانا علمي الشرعي أهبل الوهلية أو القرآن الكريم كان وحنو شيء وحري ودعي وحي هذا إنه اسكو حكومي لهين أما كوس عن لهين وح إمام دونا وبرزخة مركان جيريو إنه كذب عندي منه قيامه إنتانو كعين كهر حجيل الجراح كذب من حجيل التجية قيامها مركي اللي يمالو وضد كذب الوصل صار محادع دونا حاجة dadku ku kala dambayn doona jannada iyo naarta maxay kala tahay yaasa kala aadi doona degsiimadeedu see tahay cilmiga aakhiro iyo cilmiga adduunka labadiiba quraan kariimka ah uu noo kulmiyay marka cilmiga ugu fadli badani waa al-ilmu fillah cilmiga ilaahi subhanahu wa ta'ala lagu barto iimaanka lagu barto amalka saalix ah iyo wadada toosan ee siraadka mustaqiimka ah lagu barto waxa ilaahay xalaalay iyo waxa ilaahay xaraantimay lagu barto cilmiga kaasa ugu sareeya waana kan fadli badan oo ku soo arooray fadli badan oo ku yimi oo ilaahay darajaad dadku kor ugu qaado adduun iyo aakhiraba oo ilaahay subhanahu wa ta'ala uu fadli yeelay ehelkiisa dadka u saaxiibka ah aqoontaas ilaahay subhanahu wa ta'ala uu fadli yeelay ومرخاتك شري إلهي سبحانه وتعالى وحدانية شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط كعلم لنا وكتل مامي إني يهندتك إلهي كعب صدا وخشية ذلك أو تقوى ذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء هو علم لنا وكانوا إلهي درجات وقاضي علم قاسبو كوت المامية وهو يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وكوا مية اسكمديهن كوا أقوانتله أو علم قاس إلهي سيء يكون أنقرنين قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون مركا علمك سبق أو أن هذا لك صارين أي علمك فائدتي سئية فضلك ستلمامي آياتها القرآن الكريم كان نبي عليه الصلاة والسلام وتلماميا سدا إلهي سبحانه وتعالى ودرجات أصيو ويعني قفك عالمك هي وقفض البنية هي قفك كلا أن عالمك هي أما عابدك أهو حتى اسك عبادة لكن أن علمك هي كفضلي على أدناكم كفضلي على أدناكم يعني النبي عليه الصلاة والسلام فضل جيسة إلا أمضك وهو صي أنت قد حيسة أيها قد حيسة قفك عالمك هي
aqoonta leh iyo qofka aan lahayn. intaa marka aan qodobkaas ka soo gudubno cilmiga guud ahaan, cilmiga sharcigaana inuu ugu muhiimsan yahay, su-aashii dhalinyaradu waxay ahayd sidee isu waafajin karnaa cilmigii maadiga ahaa dunyawiga ahaa inaan baranno. waa kan jaamacadaha loogu jiro, waa kan adduunyada lagaga shaqaynayo, waa kan nolosha lagu horumarinayo, waa cilmigii maadiga ahaa. sidee baanu u waafajin karaynaa ama ay isu waafaqayaan cilmigeennii diiniga ahaa? jawaabtu iyadoo kooban isma diidayaan. cilmigu ma diriro, laakiin jaahilnimo ayay ka timaadaa ama aqoon daro dhinacay noqoto ha noqote cilmiga diiniga ah ama dunyawiga ah jahli gala ama faham qalada oo gala baa dagaalku ka yimaadaa. isma diidana. caalimku haddii uu yahay masalan caalim fi tibbi ka soo qaad, medicine buu caalimku yahay. handasada dhulka geology buu caalimku yahay. handasada beeraha iyo dhulka waxa ka soo baxaya miraha sida loo beero buu caalimku yahay, waa cilmi maadiya. handasada birta wixii lama mechanical engineering iyo wixii la halmaalo oo dhan bir iyo technology buu masalan caalim ku yahay ama caalim ku noqday ama bartay. waa caalim fi cilmihi. ma diidayso cilmiga diiniga ah, isma diidayaan, waayo isku soo dhacaan. labaduba ilaahay baa subxaanahu wa tacaala ay ka yimaadeen. ilaahay bay ka yimaadeen. marka cilmigaas dhulka lagu bartay, dhulkana ilaahay baa abuuray. qawaaniintii ilaahay subxaanahu wa tacaala geliyey iyo siduu u sameeyey baa bani aadamku intuu dadaalo wax ka baranaya. muhiimadda dhan intaas waaye. korontadan hadda iyo electrigan iyo hawadan waxyaalahan ku jira miyaanay ahayn wax hore u jiray mise ma jirin? wax ilaahay hore ugu abuuray ma tahay mase ma aha? haa, horey bay u abuurneen. cilmiga maadiga ah iyo barashada ayaan gaarin waqtigaas in korontada la soo bixiyo. intaas kaliya waaye. cilmigii baa hormaray. aqoontii dadka bani aadam markay hormartay ayay waxay ogaatay aqoon ilaahay subxaanahu wa tacaala wax uu meeshaan mar hore geliyey oo nafac bani aadamka u leh wayna isticmaaleen. saas darteed ayuu ilaahay subxaanahu wa tacala yidhi wamaa uutiitum min alcilmi ilaa qaliil. cilmiga waxa aad weliba ka haysaan waa wax aad u yar. bani aadamku marmar buu moogtahay xoogaa aqoonta yara uu leeyahay ayaa la weynaanaysa. markaasuu waxyaalo aanu geli karin sidii ruuxda ay weydiiyeen, yasaluunaka cani ruux qul iruuxu min amri rabbi. arrin sir ilaahay weeye oo ruuxda ilaa hadda cilmi ay ku gaari karaan ma jirto. bani aadam weli kuma gaarin. ruuxda xaggay ku jirtaa? sidey tahay? sidee u eg tahay? midabkeedu muxuu yahay? dhadhankeedu muxuu yahay? xaggay ka baxda? xaggay ka soo gashaa? qofki isagoo dhintay un baan arkayna. xaggay martay? intay ka baxday? ma aragnaa meelay ka baxday, meelay martay, intay leeg tahay, jurmigeedu muxuu yahay? qul iruuxu min amri rabbi wamaa uutiitum min alcilmi ilaa qaliilan. marka xadkooda soo waxaa la yidhi wax walba ma aha inaad cilmigeeda keeni kartaan. waxa aad haysaan waa wax yar. marka isma diidayaan. colna ma aha. qofka muslimkaa markaa dhallinyarayo ardaydiina khaasta waxa weeye majaalka ama shayga uu baranayo horta xoogga ha saaro. jaamacaddiisa cilmigan maadiga uu baranayo waa cilmi loo baahan yahay. diintuna labadaba waa ina amraysaa. waxayna u timi nolosheenna adduunka iyo nolosheenna aakhirada labadaba inay nidaamiso. maadaama labadiiba in la nidaamiyo loo baahan yahay, waxaan u baahannahay cilmigii diiniga ahaa ee kitaabka iyo sunnadana dad ku takhasusa. luqadii carabiga ahayd, fiqhigii, xadiiskii, shareecadii, axkaamtii, fahamkeedii, xalaashii xalaantii, cilmigii wax ku takhasusaa u baahannahay. isla mar ahaantaasna culumtii kaleeto oo adduunyada aynu ku shaqaysanaynay ee dhulkan ku camiraynay oo ilaahay ina faray inaynu dhulkan camirno oo ka shaqaysanno kuna shaqayno dadkana ugu shaqayno ilaahay ina faray
iyadana dad ku takhasusa oo aqoon u yeesha ayaynu u baahnaa labadaasu marka ay kulmaanna waxay isugu imaanayaan ilaahay inay labaduba addoon u noqdaan oo caabudaan oo waddadiisa raacaan oo u hoggaansamaan halkaa inay isugu yimaadaan baa la rabaa ma la rabo in la dirirsiiyo oo kan marka cilmiga maadiga ah baranaya uu ismoodo inaanu u baahnayn cilmigan diiniga ah ee iimaankiisii iyo cibaadadii ilaahay iyo barashadii ilaahay iyo axkaamtii ilaahay iyo hanuunkii ilaahay uu bani aadamku u soo dejiyo ku socon lahaa ee birtan iyo aqoontan maadiga ah lagu hagi lahaa inuu isu malayo inaanu u baahnayn marka cilmi buu bartay adduunyo oo maaragtay maadi ah meel sar uu ka gaaray marka uma baahna cilmigan diinta ah taas waa qalad waa tii qaladkii ay Oroba mar hore ku dhacday oo culimada qaar ay gubay oo kuwii kaniisadii iyo la dirirsiiyay iyo culimadii technology-ga iyo maadiga sameeynayay kadibna dagaalkii ka dhacay qolo kale gubtay kadibna ay kala joojiyeen oo dhahan marka diintana halka inaga xira kaniisada halka inaga saara maxaan ku sheegay cilmiga adduunkana halkaas hay noo socdo oo meesha ay ka timi caalimaanimo yani diin shaqo kuma leeyihiin caalamka kaliya baan annaga ku soconnaa cilmaaniyadan dadka qaarkood waxay u maysaa cilmi inay ka socoto cilmi kama socoto cilmaaniyadu cilmi maaha cilmaaniyadu waxa weeye waa maadiya caalamka way ka socota caalamiya wey cilmi caalami baan rabnaa adduunka wixii ku saabsan diin shaqo kuma lihin saasay u kala saareen marka dee mulxidiintii baa gelaya wax walbaa gelaya oo qof kastoo diintii la diriray baa gelaya innaga saas maaha innaga kitaabkeenna qur'aanka ayaa cilmigii diiniga ahaa iyo cilmigii maadiga ahaa labadiiba walaalaynaya wuxuuna ku walaalaynayaa labaduba inay ilaahay ka yimaadeen ilaahayna addoon loogu noqonayo oo lagu caabudayo ninkaas cilmiga maadiga ah ee geologiga bartay cilmigaas ayuu ilaahay ugu cibaadaysanaya sida ninkan faqiiha ah ee fiqiga xaaraanta iyo xalaasha bartay kitaabka iyo sunnada iyo xadiiska bartay ugu cibaadaysanayo buu kanuna ugu cibaadaysanayaa oo niyadda u gashanaya inuu ilaahay addoon ugu noqdo dadkana ugu adeego naftiisana ku anfaco aadanahana ku anfaco ayuu ugu shaqaynaya ummadiisa ku anfaco dadka ku anfaco wixii dadka wax tarayana guud ahaan dhulka ayaa ilaahay ku baaqi yeelaa waana daayaa dhulkuna jooga wa amma maa yanfacu nnaasa fayamkuthu fi lardi marka xataa qofku hadduu cilmi maadiya iktishaafay oo uu sameeyey oo discover gareeyey cilmigaasuna uu bani aadamka anfacayo dhulku baaqi ku noqonaya cilmigan korontada waxaa laga yaabaa qarniyaal ka hor dad baa soo saaray cilmiga nalkan noo baxaya qarniyaal ka hor dad baa soo saaray laakiin waa baaqi wuuna sii soconaya laanna waa wax dadka wax taraya wixii dadka wax tarayana baaqi buu noqonaya ummaduhuna way kala qaadanayaan mana uu laha jinsiyad gaara iyo caqiiqde gaara waxaa ummadda wax anfacaya qofba waa siduu ugu cibaadaysto qofna waa ku kufriyey oo gaalnimo iyo isla weynaan buu ka qaaday qofna ilaahay u hogaansamidiis buu ka qaaday horta cilmiga intaas aynu yani maaragtay fahamkaa hore inaan meesha dagaal jirin in labadaba lagu cibaadaysto cilmiga diiniga ah iyo cilmiga dunyawiga ah ee naafica ah in labadaba lagu cibaadaysto diinteennu inay labadaba inay walaalaynayso u timi ummadeenna iyo inagu dadkeennu inaynu ku amranahay labadaba inaynu baranno ilaahayna ugu hogaansano intaa haddaan uga soo baxo dhalinyarada dhegaysanaysay ama muxaadaradan loo diyaariyay waa dhalinyaro ardaya oo jaamacada dhigata waxaan leeyahay cilmi kasta oo naafica ummaddiina wax taraya ama ha noqdo mid nadariya labada cilmigu labu noqonayaa badanaaba jaamacadahaad ku dhiganaysaa cilmiga waxa insaaniyaadka la yiraahdo ama social sciences ma garanaysaa iyo cilmiga science-ka ah ee technicalka ah ee technology-ga ah ee farsamada iyo science-ka ama culuumta waxa la yiraahdo iyo midka nadariga ah ee social science-ka ama culuum al-insaniya oo maxaan ku yeesho sociology iyo psychology iyo idaara iyo maamul iyo siyaasad iyo wixii la taariikh iyo juqraafi iyo wixii la halmaala
أي أدب إيو literature إيو لغة إيو وحصل من القرآن باقي علمنا وحوي فرسمه إيو ساينس يا إيو تكنولوجي أو فروع ذا هندسة أردن إيو فرعية ذا كلا دون باسمها هديتها هاي بر هديتها هاي وحسمين هديتها هاي ورشدة هديتها هاي مصانع هديتها هاي أي هالكاس إذا فرسمة قلية طبي يقرن باقي وحي ميزين أردن لها المالة إلى مختبرات إلى إيو ماركتي وحي لها وعلم فرسمه إيو بر إيو تكنولوجي إيو ساينس يا إركي يدول كبا قلية لبضبا وأباهنا هاي لبضبا وأباهنا ومدنا نظري وحبو هجا وحبو معاملة وحبو بني آدم كدنا مادية وكلا دقمة مدنا وحي أن كل دقم لهين يوحنا استعمالنا يقال لها أن استعماله نقدن بوصوص هاريا مركا اللي يسمي سامو واي اللي يسمي سامو ولبا مد كان دي علمي أو ساينس بأمضاها صوكا عيا developing countries هذين نقول صومالي وكلنا أمضاها صوكا عيا أدوسي باهي محاد عيو حين ربان إني دي جاران أدونك سيدو ودق مايو يقابك وهر مريو أيان لو باهي والغيابة إنه كان كلي بديه هي كوقت ديري هي وهذا أرضيك مثلا مانجمنتيك ديانايا ما حسابته ديانايا على يابا صدق سنة فرصة إنه دماغ كده ما دمش لا بس أنا حتى بروف إنه يخلص لكن أرضي أختار نيمو أما إنجنيرين حق بير أما تكنولوجي أدق كنت خصوصي وحلقة يابا سنوات إنك قاعدته 5 سنة 6 سنة 7 سنة 6 سنة يعني سيو إنه عالم هيرك جار وحلقة وقت دير 8 سنة إيه وقت دير إنه باهنتاي مركا لو باهناي كانوا أصيب باهناي أنت أصلا واهر وأرنكا أن ما عرفت كوسيت المامي وهي أنت هذا كسو قدوبنو دنيرو علم كان أدونك علم كان آخره إنك الدين تنا سان شيء ويسوافق سنتين كتاب القرآن كان بلبدون وكجران كتاب القرآن كان علومتي إنسانية أهيد iyo علومتي تجريبية أهيد أما إكسبيرمنتية أهيد أما تكنيكالك waxa ku tilmaada afka ama farsamo ahayd iyo gacan ka samayn ya cilmiya ahayd labadaba u tilmaamaya kuwana waa ku sii xeel dheeraanaya kitaabka quraanku ma aha kitaab geography iyo science iyo medicine iyo mechanical ma aha laakiin waa kitaab hanuun waa kitaab maamul waa kitaab samayn insaanka sawiga ah ee toosan ee isu dheelitiran adduun iyo aakhiro aqoon diini iyo aqoon maadi isu dheelitiran ee aragti fiican leh ilaahay ku xiran bani aadamka si cadaalad wanaagsan u dhaqa wada toosan ku socda ilaa mustaqbalkiisa uu jannadii ilaahay u yabohay ka gaaro bani aadam saas uu soo raba inuu soo saaro quraanka kariimka kitaab hanuun weey إن هذا الكتاب يهدي إن هذا الكتاب يهدي للتي هي أقوى كتاب كان إنه هنونية بالله صوت إلهي سبحانه وتعالى يقول هدى للمتقين يعني جعلناه نورا نهدي به من نشاء مركا كتاب القرآن كان مركا مفير سنون مع علمي ديني كلية أيو حنبارسية ما يقوى كانوا إشارية تصالي يالبو نغسيريا ما هسان يري كتاب ساينس لكن وحويه ساينسكا أما علمك أما أقونت النوع كستا أي نقطة لبدي النوع عن شيغني يمد الليتراجر كاهو أدبي كاهو نظري كاهو يمد علمك لبدي با وسيدين وغشق يسان لاين وغحيال داران لاين أيو إنو تصيح إشارات بونا نسينية example عن سوق هذا المركة كتابك إيمانك بو نوشر رحية ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب لكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون
marka iimaankiibu ilaahay aayad ku tilmaam waa ilaahay la rumeeyo malaa'igtiisa la rumeeyo kutubtiisa la rumeeyo rusushiisa la rumeeyo cibaadadii ku tilmaamay salaadii sakadii iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala hoggaansankiisii akhlaaqdii wanaagsanayd buu ku tilmaamay ballanta oofinteedii ammaanada gudashadeedii ixsaankii iyo wanaaggii bulshada aad kula dhaqmi lahayd oo masaakiintii iyo fuqaradii iyo agoontii iyo dadka baahan iyo dadka dhibaataysan u naxariisashadooda akhlaaqdii wanaagsanayd arkaanteedii oo sabirkii iyo dulqaadkii iyo hegsashadii dhibaatooyinka iyo waxa yimaada iyo nicmada ilaahay ku siiya ku shukrido oo ku mahadso kaanama aayaddu ay soo koobtay bani aadamku iimaan ahaan caqiida ahaan iyo akhlaaq ahaan cibaada ahaan dhaqan ahaan inay hal war kusoo koobtay kuwaas waa mutaqiinta kuwaas waa tusaale aayado kale aad u fara badan ayuu ilaahay subxaana wa tacaala qad aflaxa almu'minuuna aladiina hum fii salaatihim khaashicuun salaadoodii khushuuc marka ma salaad kaliya ku mashquulsan yihiin waladiina hum cani lagwi mucriduun aayadda ku xigta waa lagwi waa maxay cantara baqashka iyo sheeka baraleyda ama waxyaalaha un lagwiga hadalka baatilka ah baa la yidhaha hadalka xun ee aan fiicnayn ee xaqa aan ahayn ee macsida ah waxbuu xantay waxbuu caayay waxbuu duray waxbuu xag sheegay waxaa maaragtay afxumo yaa waxaasoo dhan waa lagwi يعني هذا الكلام في عينين وباطل كان والذين هم عن اللغو يصير خشوع يبقى لغو حجي يعني آيات هذا وحي كهد ليسي عباده إيمان حتى لو وحي كهد ليس أخلاق قفك مونك أولي إلا رب القرآن كو إنو سمعيه يعني مركا أخلاق ديسي أما دكتور هنغضو أما شيخ هنغضو أما ولاد هنغضو ورنلا هنغضو بيرلي هنغضو جيل هوتو لو هوتو على قربها لغوينا إنه يسكدايو هدو عباديسانايو في عن أخلاق دي سنوا إنه في عناتا هذا الكيس هو إنه في عناتا ما هكذا عباديسان في عزيز ذاتك قار كيس مسلمين قار أفهمين لما ذلك يسا صلاة قاعدة كوها صلاة دي هذا أنشاي هدو مناه مصاب بحانا عايديس أفحمديس يعني وحا أهم قاعيو أن لو أتكيسنك إذن لو أتكيسنك إن الله لا يحب هذا إلهي مجعل وفقع مجعل إن الله يبغض الفاحش البذيء بيقول النبي عليه السلام قفك أفكحن يا أفكو قشن لها إلهي مجعل هذا الوناس نقول ما حد على القاعدة دي أساس إلهي تجي وحوي هديب الله هذا رايو هذا في عن وعدالة الوهد وإذا قلتم فاعدلوا وقولوا للناس حسنا وهذا العام أهوى قفنكم خاصها قال إيو مسلم إيو مدو إيو عدان إيو غني إيو فقير إيو مدوين إيو مدير إيو قل لها حسنا ضدك بني آدمك هذا الفعل قرآن وقاعدة براي قرآن مركو إسلام وهو يا سيداو كانت عليه ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم سقال صفو أو كشيء يحن أو أي تهي ضد كله إلا إسك إلاليو لقال له يا نميم هذا ضد كشكو دريها بين دار ما اسكسو قوينة يا وحول دار بدن يا هو بين دارنا أنت ما قرنا يسا يا مناع للخير خيرك أنت علي يوناك أنت علي هماز دتكو مارتي دريا وحكي شيغيا ايشو جبي اكو جبي سنتو لعي كانوا يسعوا حوي وحوق يا إلهي سبحانه ولا تلمزوا انفسكم ايات كاوي ويل لكل همزه لمزه ايوه اخلاق لك الله اخلاق لبني ادم كتوسيه وعلمي علم الاخلاق ما لا هذا علم الدنوي او قرانك انه بري علم الايمان كسو انه بري او اخرتي iyo kutubti iyo iimaanki iyo malaa'ikti soo انه بري hadana علمي ضدك كل دغميس تصالح أخلاق كنتوا نبريا كونوا مع الصادقين ضاع نمضوا نبريا أوفوا بعهد الله إذا عاهد يا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها أمانة إنه قفكم يشو يا أو أمانة وكل رقمه وهو إن بريا بل أن أوفنتا وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم أوفوا بالعقود بالله ما أقشان كونتراكتيرا أقشان يا هشيسيرا أقشان أوفية هكذا بحنا
حلاش عنا كلوا من الطيبات واعملوا صالحا حارات اسكداية ذروا ما بقي من الربا يا عدالة ربنا إن الله يأمر بالعدل يا وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ذاتك هدال حتى وحكري إبسان إنسان يا ويل للمضففين كوا ميزانك هوجينية كرادمية هوج بيلي وأنا دكان كيس جوجو حوجا مسجاي حوجا بدر قلايا عنكو كهذا يا أخلاق دي سوتشنية من غشنا فليس منا لما رأوا إنه مريها يدرك علابته يعنتظر يخضارته يوحى وقضيه إنه قش خيانة كسميه أو ضدك ومارته كمية هذا الكتوسم بينا فريا بعد النماذج أي إن فريسا والدين تقولوا إحسان فلو ضدك أردن إحسان خاصة قرابة يسكية ينقل نقطه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي وآيات جامعة صدحنا والله فري صدحنا والله نقرب إلهي سبحانه وتعالى وعند فريا عدالة وعند فريا إحسان وعند فريا ذلك قرابة هنا الحق والسيسان وعند كربيا ينهى عن الفحشاء أرماها فوش حنون دنبيل فوش حنون يا وزنا ذا إيه حتو يدا إيه بلا فريدا إيه ما عيدا إيه محنكو شيء دريدا دلك بغير حقها ما وحصل يعني ظلم قاس وحصل فحشاء وحنا عن الفحشاء والمنكر واحد دنبي ولا ينكره قلبه ينكره ودينته ينكرته خلاق دينته بالي خديده والبغي حد قدم قف كلينا تكون حد قدمته يا ورالك خاصة ورالك أو مسلم وكل جوجا يا سعد ضبا مقور صنيع ضبا الأورنيا وكلا بر بني آدم كان نصوي أذوق حتى هاف 50% أنا وروحنا 100% حقيقة كانت انتيك إيمات ما من أين جاءت حقيقة يا شيء من غا وحشي بلا يا شكتي يوحنا قران مركا أخلاق دي قرآن ساسو قال لا يا علمي ديني ساسو وحال روا مركا إنا وقت سيسو وحكبرته أدو أرضية أو إنجينيرين ديغاناي أو فيلسوفي ديغاناي أو ميكانيكال ديغاناي أو ميديسين ديغاناي أو جيولوجي ديغاناي أو بطة ديغاناي أو ماريتايم ديغاناي أو كمبيوتر ديغاناي وحاد دونتو ديغو أيها هدنا وقت إنا سيسو علمي شرعي دين تهدا إيمانك أخلاقه إلهي سبحانه وتعالى حلاشي حرانتا إلى كتابك أصل كها ماشي اللي كنت الله هي إنا يلا هذا تعرف وقت هذا ما نجريسو موجودة تنا الحوق صارته وماشي تكون شقينيسي وتكون تخصصيسي وهذا مدة وحكون تريسي إذا لفت كذا إن الإله أني يسته إذا لفت كذا عبادة قادنيسا عبادة يكون نقنيسا إذا لفت كذا مركز أمضي دين إلهي أدمارتي يقول نصرينيس لكن انت مركا كسو تكتو قرآنكو هدنا علومتي مادية اهي إشارة ممكن بحنايا الدون كان شرعية مثلا قف والبقو هاد اللي كانوا كم وحبرنايا هديو قرآن كسفي عن آخره وحو أركيا إنه قرآنكو إنه براروجينيو محاد عي كون كان إنه براروجينيو علمية مادية محاد عي كون كان سيدان شغلي ومدان وحا لوسو صاري إنه أمدها هقامسو الدون كان أي عمرتو دينتنا يكون جامس حقنا يكون جامس عدالتنا يكون جامس وكله ساس الله صار إلهي إن الله إلهي سبحانه وتعالى يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر مركب وحنا حكسوا قاضية بل يروي خاصة أرضينا هذا كجرا علومتك الدول دول كأني صومالي يباهنتهي ما ملك يهجامين تي مارين تا إشارات بأكجرا قرآنك تصاليال بأكجرا معنيال بنوبة المامية تصالي أهان شقدا إن عملك أما الشقدا الله هجربحه والله نخوض يعني الشقدا سفي عن أجته يا وأجر ماذا أكلها إن النقض بوت المامية وحنوت المامية خيراتك إلهي سبحانه وتعالى النسية كالدون وأقول إن لغلا صبحه والغمة مش أباهن يا أقول أباش خيراتك إلهي سبحانه وتعالى ينعمويك إلهي سبحانه بيه بد روك إن وبيده بضه وحا كجرة انتبه
beeraha iyo miraha sida loo samaysanaa birta iyo waxa kasta oo laga sameeyo oo nafac bani aadamka u leh buuraha iyo macaadinta iyo khayraadka iyo waxa dhan oo ku jira kullu waxa weeye tilmaamo oo qofku fahmi karo in lagu baraarujinayo waxa kan aqoonteeda inuu yeesho maamulkeedana yeesho kana faa'iideysto kana faa'iideeyo bay ugu jirtaa meesha tusaale aan soo qaadano suuradaha qur-aanka ugu dheer waxay ku magacaaban tahay al-ancaam suuratul ancaam suurad dheer waaye marka ku soo aragto sababtana ancaamta ku jirto wal ancaam ya ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kaga hadlayo marka geel iyo lo iyo ari iyo anwaacdooda iyo mushrikiintii waxay ku samayn jireen iyo waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu abuuray iyo waxa ilaahay xalaaleeyey ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ku tilmaamaya meelo kale oo aayaadka kaleeta ah suuradaha kaleeta ah oo magac ancaam ku magacawnayn wuu ku tilmaamaya inuu ancaamtan nicmoleyda geel iyo ari iyo lo inoo abuuray inaga bani aadamka uu abuuray inuu nafacsado bani aadamku baa ilaahay subxaanahu wa tacaala u sameeyey walancaama khalaqaha lakum idinku idin abuuray ayuha alinsaan idinka dad yo bani aadamka khalaqa lakum walancaama khalaqaha lakum fiiha dif'un wa manaaficu wa minha ta'kuluun saddex kalimadood waay fiiha dif'un waa dugaalku xagee ka yimi xoolahan iyo dugaalka xagee maxaa iska soo galay maxaa noogu jiro annaga dugaala dharkii baa laga samaynaya jaakadihii baa laga samaynaya dhogortoodii baa la isticmaalaya haragoodii baa la isticmaalaya ujeedaa waa la huwanaya waa la goglanaya waa guryaha lagu saabaysanaya waxbaa laga tolanaya wax badan baa lagu samaysa waay منافع كله ترى بدن منافع كلمة داس منافع إلهي سبحانه وتعالى وكتلمام وحي تلمام يسا علمي هذا يعني جامعة قاركاد ما قرنا يعني هذا إمي سأرضيبها أما مرسين أما إسطنبول أما هذا تركيا كان لأنه أما أنقرة جوكته حولها كتخصص حولها سيدا الله نقي هدي أدوي ديسان يدين شيء الدونان وحلقة طورية هنا الجرين إنه سوماليا مثلا نافك مركان قالنو هيرب كان قالنا حتى هيرب كجودها كجرا بيرك كليان كلام بحنا أنت كلا حتى وطورنا ما قلت أنت كلا عطورنا هرج أي بضح أي مجهة أي أنت نواتورنا كل واتورنا وضعنا ما شاء الله قلت قال هو قال هيرب كليان كلام بس لكن هذا ضد كان كنت تخصصي أدوي الديسان أما أرضي كجرت أدوي الديسان وعلم دن وأدونكو هذا وماركتي تطويرنايو وهرمرنايو حولها سيدا لو دقو سيدا لو فايديستو سيدا لو كبعيو سيدا لو بديو موجودة oo looga faa'iiday marka xalaasa nin Soomaaliya oo ku takhasusay arrimahaas oo professor ku noqday jaamacadaha reer galbeedkana wax ka dhiga oo cilmigaas laftigiisa dhiga wadamada qaarkoodna xataa khabiir u ahaa ay ka faa'iidaysteen cilmigiisa ayaan mar la fariistay oo kala sheekaysanay xoolaha aan leenahay iyo dhulkeena inaga wax xoolayaala markaasuu tilmaamay wuxuu igu yiri hadda ka hor sheekhow waan qoray article baan qoray aan leeyahay batroolka wax ka qiimo badan baan haysanaa oo ah xoolahan soconaya batrool soconaya ayaan ku tilmaamay batrool soconaya ayaan ku tilmaamay marka sidaa waa ku tilmaamay de wuxuu ku yiri hadda wadamadan galbeedka oo Yurub iyo ka shaqeeyaan xoolaha waxa la soo xireynayaa bisha Abriil September markay gaarto suuqa la geynayaa qaar ka mid ah la iibinayaa caanihi dhogorti lafihi wax allaale wixii neefkaas ku jiray hilibka oo dhowr iyo 20 kiilo ah
gaara loo saari waxa kale to dhanna gaara loo saari gaarba loo iibin ya marka waa manaaficdi ilaahay subhanahu wa ta'ala sheegay iyo wixii laga cunaayay haddii laakiin aqoon aan loo lahayn qur'aanku markuu ku tilmaamay ancaama biha manaafic baa ku jiro ku yiri manaaficdi adiga la rabaa inaad raadiso marka inaad barato cilmigeeda barato haddii la yiri marka jaamacada lagu baro adduunkii baa bani aadamku ugu bartay cilmiga annagu mar baan bilownay iyagu mar bay naga qaateen reer Yurub haddana dib buu noogu soo noqonayaa haddana waa sii noqonayaa cilmigu waa wareegaa bani aadamka oo dhan buu ka dhaxayaa marka jaamacada loo sameeyay la yiraahdo waa inaad baranno oo dad ku takhasuso oo laga faa'iideeyo haddii xataa aynu weyno dawlado ihtimaamkaas siiya dadku iyaga ka shaqaysan kara adigu intaad arrinka ku takhasusto baad reerkiinii oo xoolahoodii ka gaajaysan intaad u tagto baa waxaad dhihi kartaa yaa nabi ibraahim siduu ku yiri aabihiis yaa abad innii qad jaa'anii min alcilmi maa lam ya'tik yaa aabo cilmi aadan hayn baan hayaa مرسين بانكايمي iyo Istanbul jaamacad ba xoolahan ariga uga soo baxay duunkiisi xanuunkiisi caafimaadkiisi dhogortiisi caanihiisi hilibkiisi wixiisa loo badiyo kaalay aan tusay reerkii oo dhan inta tus oo cawskii u beerto oo xanaanadii u samayso oo sida loo dhaqanayo u tusto ilaa Soomaalidu hadda ma dhaqato ma taqaano cilmiga dhaqashada xoolaha Soomaalidu ma taqaano Soomaalidu xoolaha xoola raacato laakiin xoola dhaqato ma xoola dhaqato waxa wadamadan aad aragteen oo xoolaha ka faa'iideysanay Australia New Zealand Denmark Holland kada Ireland fulan xoolaha way dhaqadaan way ka faa'iideystaan inagu waa raacnaa laakiin kama faa'iideyso marka dhalinyaradiinaan wax baranaysa majaalaad kala rabo oo quraanka iyo diintuba ay idinku dhiirigelinayso inaad wax ka barataan waa kuwan oo kale kadibna intaad noqoto ninka jaamica islaamiga ka soo baxay ee fiqiga soo bartay ummadii buu imanaya xalaashi xaaraantii buu baraya adigina inta timaado waxay cuni lahaayeen iyo waxay ka ganacsan lahaayeen iyo waxay ka shaqaysan lahaayeen shaqadoodii baad adiguna baraysaa labadiina waa simantiin ilaahay agtiisana waa simantiin niyadiina qof walba ilaahay subhanahu wa ta'ala u qaaday labadiina qur'aankii baad hirgelinaysaa ma fahamteen marka say isu waafaqsan tahay cilmiga diiniga iyo cilmiga dunyawiga ma idin baa way dhinac kale aan ka tilmaamo qoriyihiinan waxa jira qaar laga yaabo inaad hadda ku takhasusaysaan badaha inaad ku takhasusaysaan masalan fisheries-ka ama kalluunka ama khayraadka badda ku jira ayaa ku jira ama may aad ku takhasusaysaan maritime-ka iyo maraakiibta iyo doomaha iyo wixii badda mara badda wixii mara maritime-ka engineering ما مثلا كنت تخصص القرآن الكريم كان المامية وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مراكب توي ما نلو وحان أركي مركب كي أقوينا الدونك ما نلو وحان سميي دالك ساوث كوريا وحنا أسميي شركة غير قلبات كان لقليه غير قلبيتك إليه لكن لقوم السمين قلبيتك لقوم السمين وقالوا صوت كوريا السمين يا كوريا السمين بالمناسبة هذا تركي كان أنجوجنه أما إذا كان عرضي هذا محاضرة صوت أي شو كان إن بدنا نكمله حق السمين تم مراكبته صنعة مراكبته إن هالنقطة قوة حمولك أما هالنقطة قوة راحة ويختسك الله يقانو يا ودن كصدحات ويختسك أدونك تركي ودن كصدحات ويصلي أدونك لعلمكم هذا وقال ودن كصدحات لو ودن كليا كهر يا لو ودن كليا أيا كهر وحين كنت ذلك يعني إني ولي صو هرمران ويعاد صو هرمريان ما تقانا لعقت كسو قليس مراكيبتا راحة يدل حيسكا يختس أي سميان ودادك أغنية دا أي قاتان أي سدان لغا سو أوردر قرشت إن لو سميو سنة كلا بليون لعقا أن كيرين با كسو قليس دالك $2 بليون سنة كسو
انت اسكريا دولك مركب ولا سمينا وايو صنعدان مدة لغو فدينيا مركب كان إلا سمينا بقول مليون 8 مليون أو دولار بكوست جرينيا قفك اللي جاي يبينيو بقول يكون مليون بقول لا 10 مليون إمسا كشقينيا إمسا إنجنير كشقينيا إمسا دad صنعة ورشيدة كشقينيا إمسا شغل الله أبوريا ملايين تاس ودنك إنجليزي صنعة كتمي مركا أنا waxaan u baahanahay sayniska iyo sanadada dhalinyaro in xoog marka saartaan dadkeena Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin khayraadkan iyo waxyaalahan sida ugu faa'iideysan lahaayeen sayniskan u baahan cilmiga culumta loo baahan marka maritime-ki hadaad ku takhasusayso ama maraakiibti ama dhismaheedii ama maxaan ku sheegaa badii laftigeedii sida looga shaqeysan badii yani dalkiinu waa dalka ugu bad dheer xeeb dheer laakiin ugu faqiirsan marka waa laynagu ku yeeyaa waa laynagu la dirirayaayo waa laynagu haystaa dacalada layna haystaa lugaha iyo dibaa waxa la leeyahay war kuwan xeebta iska aga fadhiya ya waaba yiriba ra'iisul wasaaraha Ethiopia waaba yiriba wuxuu yiri bad iska dheeraatay oo 3,000 kilomitir ah in la iska daawado wax maaragtay macnaha ay sameynayso mal hadana waa iska daawanayna macnaha waa daawanaysaan idinkuma fiirsan karo in laga faa'iideystaan raba meesha marka maalin dhaweyd waxa aad ii farax gelisay oo clip halkaan aan ka arkay magaalada Garacad dad intay isxil qaameen ganacsato iyo dadka deegaanka deganaa inay deked in meesha laga dhiso magaalada Garacad ay sameeyeen ayna bilaabatay shirkad Turkiya meesha iga muuqatay oo dhisaysa qayb kamidana la furayo badiyo waxaan arkay alaabtii la dhigay dhagaxii la dhigay oo dekadii la geliyay war wuxuu haddii ay sida u fududahay oo dad ay maaragtayba isxil qaamay samayn karaan dawladaha iyo maamulada iyo nidaamyadu maxay samayn karaan baan isweydiiyay haddii ay wax qorsheeyaan maxaa dhacay oo dalkeenu hodan wuxuu ku yahay badahan ilaahay siiyey kasoo bilow halka kasoo wareeg Kismaayo iyo Rees Kamboni إلا بدع Indian Ocean كأردن 1,500 كيلومتر تقريبا أيام مارتي كلا كان دين عن كلا كسب لو قرد فوي إلا جبوتي أذكر جارتو يدنا واحد تاسو هذا بدع عص يخليش كعادة بدي عرب كنا قربي كتاه صدح بضوط بماشي سوي مان الدون كي ترافيك يسيرن بمريا ما عنده ويد وحن حوجا يعني آخر سكو سميه إنا في ريوبل بلهن يدكدهن فائدوين كود يوحى الله سمينا هذا مثلا مرينا وكسب بحب مراكبته مركا يك إيمان يسوع يوروب يمريترينيان كأما بدن مارتي عاد مركا يك إيمان يسوع هذا بدن ده وخرسويس وين يسوع مران هذه أي أتلانتيكا يدين عيسو مرايانا كيف تاون وين يكسو وريجان كيف وينو كسوريا هدي كان دين عن تركيا بوسفور يبدل مدو وحق اي راشي اي كاله ادونك مريناديسا مسلمين با انت بدن فديدا كل جود مركبكم مركو كسو دقاقو خور سويس او مصر او ku socdo مثلا فار ايستيا هذا كيف سي فيعون دغيستا جاينا او سocda سنغابور او سocda دكده waaweyn oo dhinaca Malaysia u socda xaq u socda okay ma fahmi wuxuu sida xamuulka ugu weyn oo 100,000 tan 150,000 tan buu sida Soma Suez ka soo baxay wuxuu baahan yahay konteenarada qaar Afrika u socda kala bar xamuulka inuu dejiyo oo meel kale deked kale ku dejiyo kadibna xamuulka intiisa kale oo xagga Aasiya u sii qaado مثلا for example waayahay markuu soo maro Khorsuweys ka soo dhaqaaqo markabka 100,000 oo tan u wada intaas xeebahaas badda Carabta iyo badda Cas iyo Indian Ocean-ka agaarkeeda u dhow hal deked oo uu ku degi karo ma jirto oo aan ahayn Dubai Jabal Ali aan ahayn ma jirto dekedaha kale yar waa ka yar capacity gooda yar markabka ugu badan oo keeni kara waa 30,000 tan 40,000 tan hadii uu sido meelaha waaweyn way waliba uu ku xiran kara laakiin
facility انت لك وحكيه لكرايا مثلا جبل علي بكيليا او كميدا tobanka dekedood adduunka ugu sareeya ama ugu shaqo badan marka adduunkii baa tartan ku jira waagii hore adduunka waxa haysan jirtay deked ku taala dalka Netherland ama Holland oo la yiraahdo Rotterdam waa magaalo Rotterdam saad garanaysaan magaalooyinka Holland kamida magaalooyinka Holland kamida waana deked 400 kilometer iskuweera dekeda magaalada dekedaas kaliya way ayay ku investigaraysay Holland inay adduunka ku qabsato wax badan exportiga importiga iyo kala wareejinta containerada Europe dhan iyada dekedaas inay soo Rotterdam marka number 1 bay adduunka macruuf ah siimaanadii odayaasha hore siimaanada weydiiye Rotterdam iyo Liverpool iyo meelo kaaga sheekeena waxay calan walayso Rotterdam oo adduunka haysato oo dekeda ku haysato Singapore soo baxday dhulkay ku dhifartay macna adduunka bani aadamku uu kala faa'iideysanaya Singapore waxay ku fikireen waayahay Rotterdam Holland iyadoo dal yar ah oo 15 milyan dadka 18 milyan ama 20 milyan dadkeedu yahay ayay ka faa'iideysatay dekeda inta leeg dalal ka waaweyn oo Ingiriis iyo Jarmal iyo oo ka magac dheeraatay man aniguna waa sameey karaa marka deked inaan sameeysto anoo Singapore ah oo 4 milyan 3 milyan ah marka dekedaana iga dhigi doonto wax weyn way koobiyareen waxay sameeyeen Singapore deked ugu weyn adduunka number 1 bay daftay way ka qaad caalamkii kale waxay calan walayso China soo baxday 20 sano ugu dambeysay China ayaa soo kacday China waxay aragtay dekedu inay ka mid yihiin waxyaalaha ganacsiga adduunka isku xiraya dhaqaalaha oo dalka ka soo galay dadkuna shaqo ka helayaan dhaqaalihiin wala dhaqaaqayo dekedii ugu waaweynaa marka xoog gelisay inay samaysato Singapore number 1 kii calankii waa laga qaaday keen baa la yiri calanka Shanghai baa kala wareegtay calankii Shanghai baa calankii kala wareegtay hadda calanka Shanghai baa haysata marka haddaad ihsaa'iyaadka u noqotaan ama aad fiirisaan steady yaradina sameeya oo kulli ama siyaasiyiinta oo ka fikiraya xataa waxyaalahaas waxaad arkaysaa boorka inay ku kicisay Shanghai oo Singapore oo number 2 ah hadda inay soo gaarto waqtigan ma dhowa inay soo gaarto waayo 30 milyan oo container bay maraysaa meesha la yiraahdo maxaan ku sheegaa Singapore 40 milyan bay ku dhowdahay Shanghai gaab dheer baa marka u dhaxay arabta Dubai joogta ha u malaynina in Jabal Ali ciyaaro uu iskaga yimi ama Dubai dekedayska Dubai resource badan male odagii magaaladan sameeyay Rashid bin Abdullah al-Maktoum Rashid bin Said al-Maktoum bandheena odagii ahaa amirkii Dubai sheekhi Dubai Jabal Ali and dream bay ahayd agtiisa Mohammed bin Rashid kitaabkiisu kaga sheekeynaya aabihiis markii uu dhisayay waxa jiray miina yar oo deked ah oo miina Rashid la yiraahdo oo odagu ku magacaaban oo Soomaalidu waxta ariga iyo xoolaha ay geey jireen ilaa hadana ay geeyaan oo Dubai ay ku nooshahay baa jiray Soomaaliduna aad bay meeshaas muxtaram uga ahayd kadibna odagu wuxuu ku fikiray wax inta ka weyn meeshaan waxaan ugu iman jiray buu yiri galabtii isagoo shaah ku cabaya bacaadka yar ee agtiisa ah ee fadhiya oo badan daawanaya waa dream waxa la yiraahdo waay goorma meesha noqonaysaa goorma saas noqonaysaa haddii meesha saan aan ka dhisaa maxay noqon lahayd waa qof riyoonaya waay dream waay marka dreamkii waxay ahayd ninkan Mohammed bin Rashid hadda jooga aabihiis Rashid bin Said ayaa dreamka Jabal Ali lahaa kadibna raggan wax bartay dhalinyarada markay soo kaceen Singapore bay u dirsadeen team dhan oo soo daraaseeya teamkaas uu muddo fadhiyay Singapore wuu soo daraaseeyay wuu soo koobiyay kadibna nusxa kaleeto ay iyagu markaa Jabal Ali ka samaysteen sidaas bay ku noqotay Jabal Ali inay 10 dekedood adduunka tartanka ugu sareeyo ugu jira meel damay kaga jirtaa waxaan filayaa 10aad mise 9aad waaye laakiin inay tartanka gasho top 10ka ay gasho halkaas ay ka soo gashay China marka arrinkii way sii xoojisay ilaa iyo 7 kamida iyada China waaye
tobanka ugu sarreeya adduunka 7 ka mid ah China iskale saddexda kale hadda ku jira top 10ka waa Singapore iyo Busia oo maaragtay meesha la yiraahdo South Korea iyo Jabal Ali marka anigu maalintii dhaweyd markaan arkayay garacad waxa yani dreamkaygu mar walba ahaa Soomaalidu inay muahal u tahay ayna tahay inay ku fikiraan dadkeedu inay ku fikiraan ay tahay meel hoose inay ka fikiraan maaha meel sare maxaa dhacay badii bay haystaan nooc kala nooc ah oo Afrika ugu dheer oo marinadii bay fadhiyaan marka hantidan ayaa waxay tahay lacag adiga shilin kale laga ma rabo wax shilin ma bixin dhiibis maalin hore waxaan la isku darsado adduunku uu ku kala iibsado dalkan Turkiga hadda airportkan ugu weyn adduunku ugu weyn yahay leeyahay Istanbul dawladda hal shilin kagama bixin waa investment PPP waaye public private partnership way marka Soomaali oo haysata hantidaas waxaan mar walba isweydiiyaa maxaa dhacay marka fiiri Suez markabkii ka soo dhaqaaqay waxaan qiyaas hadduu rabo alaabta inuu dhigo waa inuu Jabal Ali tagaa Jabal Ali inuu soo soconayaa 2,000 taqriiban oo nautical miles buu jaraya 2,000 nautical miles ama 1,800 marka uu yaraato waayahay hadduu Far East u socdo soo uma fududaan lahayn Djibouti ama Berbera ama Boosaaso ama Calula Gardafuul soo uma fududaan lahayn intuu saa u daadiyo inuu hore u sii socdo toos straight u sii baa laakiin facility meeri kara maya meeri karo facilities ki meeri u keeri karo ma jirto aan ahayn Dubai waa in Dubai ku geeyaa alaabta halka kugu daadiyaa oo ka keenay halkaas kadibna doon inta lagu soo saaro Boosaaso ay kugu keentaa ama Berbera kugu keentaa ama marka kale yar inta la soo saaro gabana oo Berbera kugu keenaa ama Djibouti kugu keenaa ama Boosaaso kugu keenaa way ku dhaaftay ugu had mar bay ku dhaaftay kostigiina wuu qaali noqday lacagtiina way ku kordhay shidaalkiina wuu ku kordhay kadibna dib baa lagu soo celiyay markuu halkaas tagay dib baa lagu soo adduunku meelo ka shaxayo marka waa sabab la fahmi karo maxaa dhacay oo DP World shirkadda la yiraahdo oo Jabal Ali maamusha ay u rabtaa inay qaadato Berbera ay u rabtaa inay qaadato Boosaaso ay u rabtaa inay qaadato Djibouti ay u rabtaa inay qaadato Cadan ay u rabtaa inay qaadato Suudaan ay u rabtaa inay qaadato Eritrea ay u rabtaa inay qaadato xeebta bahar badda cas oo dhan waxa yaala inay qaadato maxaa dhacay iyay meesha Singapore oo kaleeto ama Jabal Ali oo kale igaga soo kicin waay qasad kale ma jiro wax kale jira ma jiro meeshan hadduu ka soo baxo mid Jabal Ali la mid ah aniga waa ii dhamaatay waay Jabal Ali waa u dhamaatay maxaa dhacay istaraatiijiyan waa laga fiican istaraatiijiyan badda waa laga hayaa Suez markuu ka soo dhaqaaqo Berbera wuxuu soo soconayaa 800 ilaa 600 oo nautical miles uu soo soconayaa Jabal Ali 800 oo nautical miles buu ku tagayaa maxaa ku kalifaya inuu aado Jabal Ali haddii Berbera facility ka helayo ama Boosaaso ka helayo maxaa ku kalifaya ma jiraan marka meelahan kale to hadda subcontracting ay ku sameynayso marka dhalinyaro hadalkayga waa soo gabagabeynaya Quraanku marka uu tilmaamayo badda idin leeyahay ma waxaad rabteen marka kitaab science inuu noqdo oo badda idin kala dhigdhigo oo engineering ma kitaab Quraanku Quraan idin ku sheegay maaha kitaab science iyo geography iyo maaragtay tibbi iyo engineering iyo xoolaha iyo kale laakiin dhamaantood wuu ku ishaaraya hogaamintii iyo dhinacii kaleeto iimaankii iyo managementkii iyo idaaradii iyo muhaasabadiina wuu ku ishaaraya dhammaan culumtii oo dhan Quraanku ishaaraya adduunka tii lagu maamuli lahaa iyo aakhirada tii lagu maamuli lahaana wuu kugu hogaaminayaa innaga la rabaa inaynu kala nidaamsano labadana ku soconno aynaan isdiidsinin adiga oo baranaya cilmigii maadiga ah ayaa waxaa la rabaa diintaadana wixii aad qof muslim ah oo toosan oo maskaxdiisu nadiif tahay oo xor ah aad ku noqon lahayd inaad kala soo baxdo kitaabkaaga haddii kaleeto cilmigaaga maadiga ah wax weyn ma tarayo meelna kuma geynayo intaas baan galabta dhalinyarada rabay inaan la wadaago ilaahay subxaana watacaala tawfiiqda hana waafajiyo khayrkana ha nagu toosiyo cilmi naafic ah iyo camal saalix ah hana siiyo
رمضان كان الله نجا أقبله توفيق الله نوافجيه ليلة القدر الله نوافجيه انت أساني كريتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته